Waxaan isweydiin jiray waqtigu muxuu halkan u istaagay, maxay saacadu halkan u joogsadeen, maxaa qadarkayga iyo nasiibkayga sidan ka dhigay. Mararka qaar markaan su'aalahan isweydiiyo waan ilmeyn jiray, waanan ooyi jiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan mubaarak. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kale muuqaal kaloo xiise leh. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta, balse intaynaan muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar, sidoo kale subscribe channelka haddaad nagu cusub tahay. Haddii hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hawl weyn ayuu kuu dirayaa. Mararka qaarkood waxaan ka cabsanaa haynteena lacagta ama dakhliga soo gala reeraheena ama bulshadeena iyo waddankeena inagoo ka dhowaan soo dhacaya inay ku yimaadaan xikmad Ilaahay subxaanahu wa tacaala, taasoo ay adag tahay inay fahmaan basharku. Qaar kaloo inaga midiina waxay ku cadhoodaan inay kasoo baxeen jaamacado heer sare ah oo ay soo qaateen shahaadooyin qaali ah dadaal dheer kadib, balse ay qaataan hawlo shaqo oo aanu qalmin. Markaynu aragno dad shaqo wacan haya, ayaynu nidhaahnaa anaa kan ka wacan, anaa kan ka dadaal badan, anaa kan ka karti badan, maxaan anigu halkan u joogi waayey, inagoon ogeyn in qadarku inagu jiheeyo go'aamo iyo waddooyin iyo shaqooyin aynaan jeclayn ama aynaan ku qanacsanayn, balse laga yaabaa inay ku jirto naxariis badan. Waqtiyada adag maaha inta badan cadaab, waqtiyada xunxun mararka qaar waa nimco aynaan garanayn. Dhimbiisha dabka ah ee gacanta ku haysid ee ku gubaysa gunteedu waxaa ku jirta naxariis, barwaaqo, mustaqbal iyo guul aanad ogeyn. Kaliya waxaa lagaaga baahan yahay inaad in yar u samirto oo aad xamisho xanuunka, hadhowna kulaylkaasuu iska baaba'aya. Nuur iyo iftiin mugdiga lagaga baxo ayaana ku xigaya. Mararka qaar duruuftu meelahayna geyso inagoon raalli ku ahayn, nafteena lagu edbinaya. Ilaahay bayna rabaynayaa, waana samir iyo adkaysi nafteena lagu carbinayo, waxaana laga yaabaa in lagu tababarayo hawl culus oo kugu soo food leh. Haddaba aynu soo qaadano qiso ku tusinaysa in naftaada loo tarbiyeynayo hawl culus oo kugu soo food leh. Qisaduna waxay u dhacaysaa sida tan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Dr. Hibaaq Cabdiraxmaan Ismaaciil Buubal. Maalintii taariikhdu ahayd 25 bishii 6 2009 ayaan waxaan ku qoray buuggayga xusuus qorka oon kaga sheekeynayay maalintii aan jaamacadda caafimaadka dhameeyey ee aan soo qalin jebiyey kuna soo guryo noqday wadankii aan deganaa Imaaraadka. Waqtiyo badan kadib ayaan shaqadii caafimaadka aan soo bartay raadsaday, albaab kastana garaacay si aan u helo shaqadii aan waqtiyo badan ku riyoon jiray. Shaqadii rajadeedu ila soo kortay ilaa carruurnimadeydii, taasoo ahayd inaan noqdo dhakhtar si aan bukaanka u caawiyo, waalidkayga igu farxaan, aan qayrkeed ka hadha laygu magacaabin. Shaqadii ayaan in badan raadsaday oo aan ka quustay, taasina waxay igu riday duruuf aad u adag. Dantuna waxay igu qasabtay inaan noqdo macallimad carruurta waxbarta oo guryahooga ayaan ugu tegi jiray carruurta. Cadeedu way kululayd, dhib bay ahayd in xilligaa la socdo. Waa talabaadee umaan lahayn wax aqoona iyo khibrada sida carruurta loola dhaqmo, uma dulqaadan karayn dhibkooga, fahan yaraantooda iyo dadaal la-aantooda, uma dulqaadan karayn inaan casharaanta ugu celceliyo. Habeenkii ayaan guriga ku soo laaban jiray aniga oo qalbiga iyo maskaxdiyo jidhkaba ka daalan, aniga oo qalbi jab iyo diiqad dareemaya. Waxaan isweydiin jiray waqtigu muxuu halkan u istaagay, maxay saacadu halkan u joogsadeen, maxaa qadarkayga iyo nasiibkayga sidan ka dhigay. Mararka qaar markaan su'aalahan isweydiiyo waan ilmeyn jiray, waanan ooyi jiray. Kadib wax kasta caadi ayay noqdeen. Carruurtii aan dhibsan jiray waan la qabsaday, waxaan is arkay aniga oo la faraxsan. Casharaantii aan dhibsan jiray ku celcelintooda anigoo ugu celcelinaya, mar kastana la faraxsan. Waxaan bartay inaan daacad u noqdo shaqadayda oonan wax ka khiyaamin. Waxaan bartay wax kasta oo i haleela inaan guriga ku soo noqdo aniga oo faraxsan. Waxaanan markaa ogeyn oon Hargeysa ku ogaaday in Ilaahay ii tababarayay hawl culus oo Hargeysa igu sugaysay, taasi oo ahayd layli iyo carbin. Markii ugu horeysay ee Hargeysa yimid, hawshii ugu horeysay ee aan ka qayb qaato waxay ahayd kulliyadda caafimaadka ee ilkaha ee jaamacadda Camuud, oo ahayd markii ugu horeysay ee dalka laga furo, isla markaana aan ka noqday bara sare oon ardayda u dhigo cilmiga ilkaha. Waan ku faraxsanaa. Maalin walba markaan fasalka soo galo ayaan odhan jiray, Ilaahay hawshan ayuu kuu diyaarinayay, adiguna waxaad ogaataa daawade in Alla arrimaha jaangooyo, in amarkiisa
hoostiisa wax waliba ku shaqaynayo sharciyada iyo qawaaniinta uu dejiyey. Maaha muhiim inaad ogaatid maxay waxaani sidan u noqdeen, laakiin waxaa muhiima inaad ku kalsoonaatid go'aamada uu Rabbi qaadanayo iyo wadooyinka uu Alle ku marinayo, maxaa yeelay wax kasta uu Alle inoo qoray danteena ayaa ku jirta. Ogow, Alle wataan ma iisho. Daawade, waad ku mahadsantahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe channelka, siina share gare. Wassalaamu calaykum.